tabinteennan waxaynu ku eegaynaa mid ka mida warbixinaha ku saabsan nolosha shakhsi iyo shaqeed ee shakhsiga loogu hadalhaynta badan yahay warbaahinta iyo fagaarayaasha siyaasadda ee ay Soomaalidu ku kulanto. waa shakhsiga ugu caansan bulshada dhexdeeda kaasoo aan ahayn madaxweyne xil haya ama mufti caalim ah oo diinta meerinaya. waa nin aan dad badani la kulmin, shakhsiyad ahaan qarsoon, isna qariya, balse dadka aan ka qarsoonayn. waxa uu yahay qof kartidiisu gaarsiisay mustawaha awood shakhsiyadeed ee qof yeesho saamaynteeduna gaadhay gees ilaa ka gees kana tallowday xuduudaha. waa kuma qof ahaan ma jirto xog daabacan oo laga hayo, meelna kuma qorno xogtiisa shakhsiyadeed ee gaarka ihi. halka uu ku dhashay ma jirto cid si qeexan u haysa. waa suxufi baaliq ku ah garnaqsiga iyo abuuridda ubuucda. waa siyaasi aan la saadaalin socodkiisa, xisaabta siyaasaddu aysan si fudud ku dhaafin. waa sirdoon aan la dhakrin 4 sano ee la soo dhaafay.